dowladda dalka Pakistan ayaa waxay qaaday xayiraadii saarneyd xisbiga mayalka adag ee muslimka ah oo lagu magacaabo TLB kaasi oo ahaa wajigii dibadbaxyada looga soo horjeeday Faransiiska ee ka dhashay daabacaada sawir gacmeed lagu aflagaadenayo suubanaheena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. hogaamiyihii xisbiga TLB ee xirnaa iyo sidoo kale boqolaal taageerayaashiisa ah ayaa la sii daayay, waxaana xabsiga loo ogolaan doonaa inuu kaga qayb qaato siyaasadda guud. dad badan ayaana ka cabsi qaba in tallaabadan aysan saameyn ku yeelan doonin siyaasadda Pakistan oo kaliya, balse ay sidoo kale saameyn ku yeelan doonto siyaasadaha gobolka oo guud, taasi oo ugu horeyso dagaalada iyo cadawtooyada u dhaxaysa dalalka Hindiya iyo Pakistan. taariikhdu markay ahayd 11 Oktoobar, sarkaal boolis ah oo lagu magacaabo Irfan Ahsan ayaa waxa uu baahiyay si uu u sugo ammaanka magaalada la yiraahdo Wazirabad ee gobolka Punjab ee dalka Pakistan, halkaasi oo boqolaal mudaharaadayaasha TLB ah ay ku sugnaayeen in ka badan 7 iyadoo ujeedadoodu ay ahayd inay hareereeyaan caasimadda Islamabad si ay ugu qasbaan dowladda inay erido ergeyga Faransiiska iyadoo lala xiriirinayo daabacaada sawir gacmeedkii laga sameeyay Nabi Maxamed naxariisiyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. dibadbaxayaashu waxay sidoo kale ay dalbanayeen in la sii daayo hogaamiyahooda lagu magacaabo Saad Rizvi oo u xirnaa sharciga la dagaalanka argagixisada ee Pakistan. kooxda TLB waxay afduubatay Ahsan oo damacsan si uu u soo iibsado dawo xilligii qadada, sida uu sheegay walaalkiisa Usmaan Ahsan. 2 maalmood kadib jirkiisa oo si xun loo jarjaray ayaa waxaa laga soo saaray isbitaal u dhow goobta ay wax ka dhacday. aad ayaan u dhibaatoonayaa sababtoo ah kuwii dilay walaalkayga waxay isku sheegeen inay yihiin ilaaliyayaal islaamka, laakiin ma hubo nooca islaam oo ay ilaalinayaan maadaama inaguba aynu nahay dad muslimiin ah, ayuu walaalkiis warbaahinta u sheegay. ma ahayn markii ugu horeysay ee TLB lagu eedeeyo naxariis darrada. booliska gobolka ayaa waxay sheegeen in sanadkan oo kaliya taageerayaasha xisbiga TLB ay dileen ku dhawaad 10 booliska ah, ayna jirdil iyo dhaawac u geysteen in ka badan 1300 oo askarta booliska ah iyagoo isku hormaadyo ku dhaxmaray caasimadda iyo meelo kale kadib dibadbaxyo ay dhigayeen kooxdan ayaa waxaa aas-aasay wadaadka codkarka ah oo aan gamban jirin kaa oo lagu magacaabi jiray Khadmi Hussein Rizvi sanadii 2015. waana koox muslimiin ah oo mayalkoodu uu ku adag yahay iyaga oo diinta u arka waxa ugu weyn oo dalkoodu u haysto, waxayna taageertaa sharciga aflagaadada diimaha ee dalkaasi kaasi oo ka dhigan in lagu xukumo dilta ugashaah cidii lagu eedeeyo aflagaadada islaamka iyo Nabi Maxamed naxariisiyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. sanadkii la aasaasay TLB, aasaasaha waxa uu ku hanjabay inuu Netherland ama Holland uu ka tirtiri doono khariirada adduunka kadib markii siyaasi u dhashay dalka Holland oo lagu magacaabo Geert Wilders uu ku dhawaaqay tartan lagu sawirayo sawiro lagu aflagaadenayo suubanaha. Khadmi Hussein Rizvi waxa uu dhintay November sanadii 2020 kadib markii uu xanuunsaday isagoo hogaaminaya mudaharaad ka dhan ah Faransiiska oo heerkiisu uu sareeyay. waxa uuna ka carooday hadal ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo difaacay in dib loo soo daabaco sawir gacmeedka Nabi Maxamed kadib markii macallin dugsi qoorta looga gooyay gudaha magaalada Paris markii lagu eedeeyay inuu soo bandhigay xilli uu cashir uu ku jiray sawirka suubanaha ardada galaaska ahna qayb ay ahaayeen muslimiin. Rizvi ayaa waxaa xilka kala wareegay wiilkiisa oo lagu magacaabo Saad Rizvi kaasi oo ku celceliyay dalabaadka kooxaha ee ah in Pakistan ay xiriirka u jarto Faransiiska. mudaharaad weyn oo dhacay bishii Abriil waxa ay xireen wadooyinka waaweyn ee soo gala caasimadda Islamabad. dowladdu waxay xirtay Rizvi waxayna ku eedeysay argagixisnimo isaga iyo boqolaal taageerayaashiisa ah. laakiin ku dhawaad 7 bilood kadib, dowladdu gabi ahaanba waxa ay ka laabatay mowqifkeedii. xayiraadii saarneed kooxda ayaa la qaaday, waxaana la sii daayay hogaamiyaha Saad Rizvi iyo boqolaal kale oo ka tirsan shaqaalaha TLB. dowladdu ma aysan shaacinin xaaladihii ay arrintan ku dhacday, balse wararka qaar waxa ay sheegayaan in taliyaha ciidamada militariga Pakistan General Qamar Javed Bajwa uu door weyn u ka ciyaaray dhexdhexaadinta iyo isfahan laga dhex abuuray xukuumadda iyo xisbiga. dowladdu waxay sheegtay in xayiraadda ay ka qaaday si ay uga fogaato isku horimaadka ka imanaya dadka isku sheegay inay yihiin kuwa jecel nabiga iyo sidoo kale dowladda. falanqeeyaasha qaar waxay aaminsan yihiin inay ka baqayaan in awood loo adeegsado kooxaha isku xilqaamaya inay ilaaliyaan sharafta suubanaha. wasiirka warfaafinta dalka Pakistan oo lagu magacaabo Fawad
waxa uu sheegay in horumaradii ugu dambeeyay ay muujinayaan in halista ugu weyn aysan ahayn Hindiya balse ay tahay xagjirnimada gudaha dalkaasi. sida ay dowladdu uga laabatay kiiska TLB waxay astaan u tahay in bam lagu magacaabo xagjirnimo uu sii dhacayo, ayuu yiri mar uu shir jiraayad uu ku qabtay magaalada Islamabad. TLB waxa ay sheekadeeda ku dhistay mowduuc ku saabsan in dadka lagu qiirageliyo ilaalinta sharafka Nabi Maxamed, taasina waxay taageero kaga heshay kooxaha muslimiinta ah ee adduunka oo dhan. kooxdu waxa ay ku faantaa caannimada caalamiga ah, waxayna sheeganayaan in raadkoodu uu gaarsiisan yahay ilaa Britain iyo Yurub oo ay caan ka yihiin. isku duwaha warbaahinta TLB oo lagu magacaabo Saddam Bukhari waxa uu sheegay in markii aasaasihii ee kooxdan oo lagu magacaabo Khadim Hussein Risi uu dhintay sanadkii hore, dad daacad ah oo kale ay ka yimaadeen Yurub oo dhan si ay uga soo qayb galaan aaskiisa. falanqeeyaasha dhanka amnigu waxa ay sheegeen in sida ay dowladdu u maareysay arrinta TLB ay xilli horeba khalkhal gelisay dheelitirka siyaasadda dibadda Pakistan ee Yurub. galitaanka TLB ee guud ahaan siyaasadda waxay gaari doontaa saameyntooda adduunka oo dhan, waxaana laga yaabaa in dunida aysan dan ka lahayn waxa ka dhacaya gudaha Pakistan. TLB ayaa ilaa hadda si guud waxa ay qayb lixaad leh uga ciyaartay qadiyada lagu difaacayo sharafta suubanaha naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, oo ah fikradda asaasiga ah ee dariiqada Barelvi la yiraahdo ee Islaamka. Pakistan waa wadan ay ku badan yihiin Barelviyiintu, laakiin waa inay sahmiyaan wadooyin cusub oo ay ku horumarinayaan saameyntooda. waa haddii ay doonayaan inay noqdaan awood siyaasadeed oo weyn iyaga oo ka fogaanaya dibadbaxyada rabshada ku dhisan. falanqeeyaasha qaar waxay aaminsan yihiin in caannimada sheekada TLB ay cadaadis ku saarayso xisbiyada kale ee siyaasadda inay sidoo kale qaataan hab sax ah oo dalka ay ugu sii riixayaan ama ay uga saarayaan xagjirnimada gobolka oo dhan aafaysay. qaar ka mid ah falanqeeyaashu waxay sheegeen in siyaasadda Pakistan ay markii horeba u janjeersaneed dhanka midigta, iyo inkasta oo ay caan ku tahay meelaha qaarkood, TLB-na aanay awood u yeelan doonin inay u soo baxdo awood go'aan qaadasho ah oo doorashada ay ku soo baxaan ee ragga u tartamaya xisbigani. waxayna aad ugu badan tahay in kooxdu ay ka mid noqon doonto isbahaysi, waana inaan sugnaa, ayuu yiri mid ka mid ah falanqeeyaasha, ilaa inta ay ka bedeli karaan mowqifkooda. qaar ka mid ah falanqeeyaasha ayaa qaba aragtida ah in kasta oo laga yaabo in TLB aysan awoodin inay xaqiijiso helidda aqlabiyadda muhiimka ah, waxay heli kartaa codad ku filan oo loo isticmaalo miisaan siyaasadeed. taasina waxaa laga yaabaa inaanay ahayn warka ugu wanaagsan ee muuqaalka siyaasadeed ee dalka Pakistan, waxaana dalalka reer galbeedka oo inta badan awood cadaadis siyaasadeed ku leh gudaha dalka Pakistan ay dhiirigelinayaan in kooxda laga saaro xariiqa siyaasadda iyo xayndaabka diblomaasiyadda ee dalkaasi, iyagoo aan loo ogolaan ama laga hor istaago ka qayb qaadashada siyaasadda oo laguna tilmaamo inay yihiin xisbi xag jir ah oo dalka ka wada qanalaase.